qisada Faadima al-Fihri waxay ku dhiirigelinaysaa gabar walba oo Muslim ah inay qaado tallaabooyin wax ku ool ah iyo inay wax ka beddesho nolosheeda. Faadima al-Fihri waa hal tusaale oo ka mid ah tusaalooyinka badan muujinaya doorka ay ku lahaayeen gabdhaha Muslimiinta horumarinta bulshada iyo ilbaxnimada Islaamka. Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaad muuqaal cusub oo ku saabsan qisada Faadima al-Fihri. 12 qarni ka hor, dowladdii Islaamka, haweeney lagu magacaabo Faadima al-Fihri waxay u nooleed inay wax ka beddesho nolosha dadkeeda. Waxayna ahayd haweeney indheer garad ah oo hami leh, waxayna ka soo jeeday qoys magac leh, waxayna dhaxashay hantida aabaheed iyada oo ah gabar yar. Waxay ahayd maalqabeen aqoon sare leh oo si wanaagsan wax u baratay. Ayadoo maalqabeen ahayd, ma ahayn muhiimadeedu inay soo iibsato kabaha ugu qaalisan ama boorso gacmeed, ama inay soo gadato dharkii ugu dambeeyay, ama inay ku guursato lacagteeda nin qurux badan oo eber ah, ama mid ka mid ah fikradaha qaldan ee inta badan lala xiriiriya gabdhaha. Waxay ahayd haweeney diiday inay ku noolaato nolol aysan u qalmin. Waxay lahayd riyo, riyadeeduna ma sii ahaan riyo oo keliya, oo waa ay ka dhawaysay natiijadeedana ilaa maanta waa la arki karaa. Sanadii 859, Faadima al-Fihri waxay aasaastay jaamacadda ugu horeysay adduunka ee bixisa shahaadada jaamacadeed ee ilaa maanta jirta, Jaamacadda Al-Qarawiyyiin oo ku taala magaalada Fez ee dalka Morocco. Masjidka Al-Qarawiyyiin waa mid ka mid ah masaajidda ugu weyn Afrika, waana mid ka mid ah jaamacadaha adduunka ugu faca weyn. Al-Qarawiyyiin waa tusaalaha ugu habboon sida Islaamku isugu daro diinta iyo waxbarashada. Tani ma ahan tusaale oo keliya iyo in Islaamku uusan ka socnayn arrimaha nolosha, laakiin waxay iftiiminaysaa doorka qadarinta leh ee haweenku ka qaateen bulshada Islaamka. Intaa waxaa sii dheer, xilliyadii dhexe waxaa loo tixgeliyey inay ahayd xarun aqooneed oo weyn. Sumcaddii fiicneyd ay lahayd jaamacaddan xitaa waxay u horseeday in Gebet of Aurelek uu wax ka barto masjidkan. Gebet of Aurelek markii dambena wuxuu noqday Bob Sylvesterkii labaad, waxaana la siiyey sumcadda soo bandhigidda nambarka Carabiga iyo nambarka eber uu u soo bandhigay waddamada Yurub, taasoo ku tusaysa taariikhda ifaysa ay lahaayeen waddamada Muslimiinta. oo jaamacadda gabdhaha Muslimiinta ay dhiseen ayaa soo saareeyay aqoon-yahanada ay maanta reer galbeedka ku faanayaan. Waxaa wax laga murugooda ah in dunida Muslimka maanta haweenkii aragtida fog lahaa, haweenkii sida Faadima al-Fihri, ay aad u yaraadeen. Haweenka waxaa hareeyay dhibaatooyinka dulmiga iyo iyaga oo aan awooddooda dhabta ah fahmin. Dhibaatadani waa natiijo ka dhalatay bulshada dulmiga badan, dowladaha oo ka maqan shuruucda iyo nidaamyada Islaamka, iyo madaxda oo ku mashquulsan sida ay jeebkooda u buuxsan lahaayeen. Sidaa darteed, gabdhaha Muslimiinta waxay qaadeen culayskii ahaa inay bulshada dhexdeeda cod ku lahayn. Faadima al-Fihri waxay siinaysaa gabar walba xaqiijinta awoodsiinta iyo dhiirigelinta Islaamku siinayo haweenka. Qisada Faadima al-Fihri waxay ku dhiirigelinaysaa gabar walba oo Muslim ah inay qaado tallaabooyin wax ku ool ah iyo inay wax ka beddesho nolosheeda. Faadima al-Fihri waa hal tusaale oo ka mid ah tusaalooyinka badan muujinaya doorka ay ku lahaayeen gabdhaha Muslimiinta horumarinta bulshada iyo ilbaxnimada Islaamka.